وأنا نكون الساعة دعوة ودنو إذن كنا إن شاء الله وضع dhalinyaradani waa dhalinyaradii gudida ahayd gudida dacwadda magaalada Hargeysa marka insha Allah taala waxayna diyaar u yihiin insha Allah inay sidii awalba uga shaqeyn jireen ilaa yaraantoodii ay sida u wadaan reer Gabiley ayaan insha Allah taala bal u yeereynaa oo insha Allah xubnaba ka noqon doona hadii Ilaahay yiraahdo gobolkan Gabiley oo insha Allah anaguna si abaabuli doono oo gudoomiyaal iyo markaa jamciyadan ku soo xiran oo qaybaheegun kamid ah aad baan markaa ugu ducaynaynaa culimada iyo dhalinyarta reer Hargeysa سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة إن dhalinyaradu xoogooda maalaan waxaan ku soo dhaweynaynaa in dadka la yiraahdo tabcada kiiba inoo yaalo oo nimcada Ilaahay ayaa yirigelino oo isgarab taagno sidoo kale waxa aan uga mahadnaqayaa jamciyadda dadaalka badan ee dadaalaysay muddada 20 sano ku dhow ee dhalinyaradeen iyo caruurteena ay tawciinaysay macnaheedu ay dhiirigelinaysay oo ay maxaan ku raadayay baraarujinta islaamka ee diiniga ah ku baraarujinaysay taasoo maanta soo gaadhay marxaladda inay isu keenaan goboladii oo dhan oo ay sameeyaan isdhexgal yaani maanta 4 gobolkii Awdal gobolkii Hawd Barojeex oo gobolkeena weynaaya caasimadu ahayd iyo gobolkan Gabiley oo runtii isna aad u qiimo badan oo aqoonyahan badan joogo intaasoo gobol bay isu keeneen waxaana runtii aan uga mahadnaqayaa gobolka Gabiley ee maartay isaguna martigeliyay dhalinyaradaas si ay maartay waqti ugu qaataan isu la falgalaan isu fahmaan oo ay naga baaba'do xeerada iyo qof walba gobolka jooga ku dhasho ee uu jooga ku noolaado wuxuu noqonayaa de gobolka shimiska jooga barti yaqaan barimo kordha loo oran jiray waan uga mahadnaqayaa runtii culimadeena uu hogaaminayo runtii Sheekh Saad oo xaqiiqatan ku dadaalay in dhalinyarada isu keeno oo horumariyo oo diiniyana u dhiso caqiidahan u dhiso aqoon ahaan iyo xirfadna uu kordhiyo marka Ilaahay baan taagu mahadnaqaynaa subhanahu wa ta'ala inuu leenahay dad fiican oo runtii ku dadaalaya waqti badan gelinaya inay caruurta iyo dhalinyarada ay maxaan ku raadayay ka saaraan xiriyaha isla markaana horumariyaan aqoontooda isla markaana ay dhaqankooda toosiyaan oo dhaqan fiican wanaagsan oo dalkiisa dadkooda waa aqoon anfaca si ay u noqdaan Ilaahay waxaan ku barinayaa jamciyadda al-tawciyah al-islaamiyya aad waxaan ugu amaanayaa iyadoo wada wacyigelinta diinta islaamka iyo akhlaaqda wanaagsaneed dhalinyarada baraysa inay ku soo kordhisay ee dhalinyaradan barto inay iskooda wax u qabsan karaan iyo cilmiga ay wax ku qabsan karaan oo weliba ay ku jahayso dhinacana imika u jahayso wax soo saarka iyo beerista aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa jamciyadda iyo intii sidaa u fikirtayba dhalinyarada hareeraha imika wada joogayna haddii alla yidhaahdo waxaan leeyahay jamciyaddana aad baa kolley laydin dhiirigelinayaa haddaan mahadnaqanagu nahay xukuumadda sheekh awqaaftuna wadaadka wasiirka awqaaftuna waa ka fadhiya anna waxaanay wasaaradii dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Somaliland wixii aan kule nooga soo baahataan iyo markaa meel soo gaarsiistaan wixii aan noo soo gudbisaanna waxaanu ka tari karno waanu ka taraynaa waxaan kaloo mar labaad iyo mar saddexaad baa idinku mahadnaqayaa sunnahan cusub aad bilowdeenoo idinkoo wada wacyigelinta diinta islaamka haddana wax soo saarna ku darteen ilmahaasu markuu akhlaaqna yeesho waxna la soo baxo oo gacantiisa wax ku soo saarto ilaahay doo barakaynayo عمل الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إلهي كوا إنه ينقدقوا أيان إن شاء الله إلهي كبرينا كلن كننا كلن بركيسان إلهي سبحانه وتعالى إنه كدقوا مكان إن شاء الله
anoon kelmadda dheereynin waxaan kusoo gabagabeynayaa dhalinyartii mustaqbalkaa tihiin dhalinyartii soo koraysaa tihiin waar annaguna sidaan dacwadda u wadno idinkana waxaa laydinka baahan yahay meel kastoo laydinku yimaado haddii gobolka gebi laydinku yimaado haddii boorama laydinku yimaado haddii burca laydinku yimaado meel kastoo laydinku yimaadaba inaad kasoo idinkuna gobolada dadka ugu tagtaan waayo martiba laydin marka insha allah waxaan kusoo gabagabeynayaa waar annaguna sidaan dacwadda u wadno idinkuna insha allah u wada dhalinyaradani waa dhalinyaradii guddida ahayd guddida dacwadda magaalada Hargeysa marka insha Allah taala waxayna diyaar u yihiin insha Allah inay sidii awalba uga shaqeyn jireen ilaa yaraantoodii ay sida u wadaan ragga waxa weeyaan qaar jaamacadaha imika galayaan qaar waxa weeyaan form 4 bay ku jiraan oo fasalkii afraad ee sare intaaba waxa weeyaan way wadayaan diyaarna u yihiin insha Allah taala marka ilaahay ha u sakhiro hawshooda naftooda iyo dacwadda ay ka shaqeynayaanba idilkeena ilaahay ha inagu anfaco oo ilaahay noo yasiro inaynu diinta ilaahay ka shaqeyno dhalinyaradeenna na ilaahay ha fahamsiiyo in ay markaa noqdaan maaragtay iyo dadkeenoo dhanba in aynu ilaahay nimcooyinkiisa garanno oo aynu markaa fahanno waddankeena iyo wixii loo baahan yahay iyo sidii waddanka wax looga qabsan lahaa insha Allah saasina diyaar u yihiin dhalinyaradu dhalinyarada kalena intaasi ku baraarujinayaan jamciyadduna intaasi ku baraarujinaysaa in la isku kalsoonaado oo markaa la noqdo maxay ul iyo diirkeed oo markaa goboladu ay ku tartamaan wax qabad laakiin aan lagu tartamin maxay ahayd wax kale aan lagu tartamin ha fududeeyo reer Gabiley ayaan insha Allah taala bal u yeedhaynaa laba inaan oo reer Gabileya alxamdulilah rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwaana illa ala adh-dhalimin alxamdulilah على كل حال إلهي بأن مهد علينا مركوبة دي مرلبات با مركلبات وحن مهد علينا جمعية التوعية الإسلامية أو قدومية كيها الشيخ سعد أورنهان تي حالي أنو هبان هرمان هبان كي مسكي جامع من نوغين حالي مركي نور لوقبتي أيان إعلان كسفي عنه فهني إسلام مركي بإلهي وحن وافجينا الشيخ كولا وربحين نغسي بإذن الله الشيخ وربحين في عن ونافع ينسي وانا نقوقنا عنا ما ترونا السيمينار كي قيب قلني الحمد لله وقيبتي براكتيكال كي اي نو هرسنتahay qaybta practical kan waxaan rajeynaynaa inuu soo qaadan doono oo insha Allah xubnaba ka noqon doono hadii Ilaahay yiraahdo gobolkan Gabiley oo insha Allah anaguna si abaabuli doono oo gudoomiyaal iyo markaa jamciyadan ku soo xiran oo qaybaheegun kamid ah aad baan markaa ugu ducaynaynaa culimada iyo dhalinyarta reer Hargeysa anaguna waxaan Ilaahay ka rajeynaynaa saasoo kale markaa naga dhigo insha Allah taala kulley waxa inoo haray iyaguna oo hadli doona qoladii reer Boorame ayaa inoo haray seminaarkana waliba ina siinayay maxay ahayd Caamir ayaa markaa kulley isaguna bal kelmadiisa ina oran doona bismillaah awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore ilaahay baa mahadle dhamaanteen noo suurtageliyay inaynu barnaamijkeenan mu'tamarka weyn aynu ku qabsano gobolka Gabiley sheekhu siduu sheegay anigu waxaan ka yimiday gobolka Awdal oo ka bilownay barnaamijkii tacliinta oo ugu talagalnay ardaydan badanka maxay ahayd public schools-ka kuwan maxay ahayd dawladda iskooladooda dhigta marka barnaamijkaas aan anaguna bilownay aan hayn jamciyadda ka tirsan maanta mu'tamarka sheekhu waxyaalo badan inuu ka hadlo rabaa oo barnaamijkan kamid ah qaybka barnaamijkan maxay ahayd qaybta beeraha oo Cabdikariin ka mas'uuliyaga asimihiisa yahay sheekhuna runtii wax badan buu qabtay Allah la garab galo iyo maxay ahayd dhamaan dhalinyarta la shaqeynaysa iyaguna sida fiican u soo jeeda gobolka Gabileyna aad baan ugu hambaleynayaa sida fiican ee wanaagsan ee ay noo marti galiyeen